tusaalahaan aniga hadda sawir baan soo dhigay youtube-kayga sawir baan soo dhigay waxaan kusoo qoray assalaamu calaykum asxaabtayda. qof baa wuxuu iisoo qoracay qofkaas ma aqaan, weligay ma arag, waxba uma dhimin. hadda sawirka halkaan soo dhigayaa, hadday ii suurta gasho waad arki kartaan. ma aqaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kusoo dhawaada youtube-ka cabdi janal oo aanu kusoo bandhigno waxyaalaha aanu isleenahay waxay faa'iido u leeyihiin ummadda soomaaliyeed oo halkan idinka daawanaysa. dhab ahaantii baryahan waan kala maqnayn oo videoyo badan halkan ma soo dhigin, laakiin waxaanu samayn doonaa caawa. waxaan idiin wadaa video wuxuu noqonayaa more like a podcast. waxaana kaga hadli doonaa Soomaali iyo social mediaha iyo Soomaalida social mediaha isticmaasha, welibana dadka caanka noqday iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan youtube-ka iyo snapchat-ka, tiktok-ga, waxyaalahaas, iyo dadkii inagaga horreeyey waxyaalaha ay kala kulmeen oo ma garanaysaa annaku aan dareemayno haddaan Soomaali nahay. run ahaantii markaad anigu waxaan ku xidhanahay oo aan daawadaa youtubyo badan oo youtubeley badan oo international ah oo caan ah, khaasatan wadamada reer galbeedka aan ku noolahay. 80% dadka isticmaala social mediaha ama youtube-ka ha u badnaaday, snapchat-ka iyo ma garanaysaa tiktok-gu waa wax hadeertaan cusub weeye oo yimid. laakiin dadka youtube-ka isticmaala, youtube-ku ku bilowday influencers waxa la yidhaahdo, inuu qof uu caan isagu uu noqdo, video uu soo dhigo youtube-ka, kadibna dadka ay bartaan, kadibna caan uu noqdo. waa wax hadeertaan waa wax youtube-ka la bilowday weeyaan. marka waxaa dhici jirtay dadka mar walba inaan arki jiray dad influencers ah oo ka cabanaya mental issue ama dhibaatooyin xagga maskaxiyan ah. waxaad arkaysaa qofkii inuu kusoo gelayo youtube-ka isagoo faraxsan, qoslaya, uu soo gelayo oo ma garanaysaa raba macnaha hami badan leh oo furfuran. muddo kadib wuxuu bilaabayaa qofkii inuu cawdo, uu sheegto dhibaatooyin kala soo darsay youtube-ka. wuxuu bilaabayaa qofkii inuu ka cawdo commentiyada loo soo qorayo. wuxuu leeyahay commentiyadaasaa la iisoo qoraa, laakiin dan kama lihi, ma kala jecli buu leeyahay. horaan uga soconaynaa. macnaha dadka aniga halkan iga soo caaya waa losers, macnaha waa losers oo ma garanaysaa ma ahan dad nolol leh. aalaamana saasay u badan yihiin dadka caaya oo youtube-ka. waxaad arkaysaa qof intuu yimaado pagekaaga kugu qoraya hadallo negative ah oo aan fiicnayn. marka qofkii wuxuu isku dayayaa inuu ignore gareeyo, ayuu isku dayayaa muddo, laakiin ugu dambeyn way soo karaysaa. qofka bilo aadan weeye. alaaba dadka bilo aadankana waa sensitive weeyaan. marka qofkii wuxuu bilaabayaa inuu aggressive noqdo oo asagii dadka caayo oo ma garanaysaa isagoo xanaaqsan uu youtube-ka soo gala. waana aragteen Soomaali badan hadeertaan, waa aragteen. runaanti waa la yaabi jiray markaa arkay dad Soomaali iska faraxsan oo youtube-ka ku jiro oo aan lahayn ma garanaysaa. waxaan dhihi jiray what is the difference. laakiin baryahan dambe waxaa aragteen Soomaali badan oo cabanaysa, ayagoo qaylinaya oo iscaayaya, welibana xadkii inay ka baxeen aada moodid. marka alaaba qof baad arkaysaa youtube-ka isticmaalayay oo ka baxay muddo badan ka maqan, hadhowtu soo laabanaya. wuxuu leeyahay
ma dareemayo caafimaad maskaxiyan ah. qofkaasi wax walbuu haystaa sida youtuberadaasi internationalka ama wadamada reer galbeedka oo kale, sida youtuberada soomaalida oo kale ma ahan. alaaba youtuberada soomaalidu waxay lacagta ka helaan inta badan waxyaalaha hadeertaan bilowday waa arkayay oo niman youtubera oo xayeysiin soo dhexgelinaya shirkado waa arkayay oo wax hadda bilowday waa. laakiin youtuberada caalamiga ah waxaad arkaysaa markuu videogu bilowdo this yani vlog ama this video waxaa macnaha promotion ayaa ku jira buu kugu soo qorayaa meesha geeska halkan oo kale waxaad ku arkaysaa promotion uu sameynayaa. marka hadalkii asagoo wada meel dhexa markuu marayo ayuu wuxuu soo qaadanayaa product uu soo qaadanaya wuxuu leeyahay productigan anaa isticmaalay aad buu u wanaagsan yahay waxaas iyo waxaas ku fiican yahay. tusaale ahaan hadda waxyaalaha youtuberska caalamku maalmahan ay xayeysiinaya waxaa kamid a nude VPN wax la yiraahdo nude VPN oo magaranaysaa app aad soo degsanaysid oo aad computerkaaga ama telefoonkaaga aad kusoo degsanaysid kadibna waxaad bedelaysaa wadanka adoo Soomaaliya jooga waxaa ka dhigaysaa waxaad u bedelaysaa inaad joogto Mareykanka oo kale. marka waxaad u isticmaalaysaa markaad isticmaalaysid Netflix oo kale waxaad u isticmaalaysaa waxaad daawanaysaa qofkii Mareykanka jooga oo kale wuxuu daawan lahaa oo kale baad daawanaysaa. markay saas yiraahdaan oo ay saa kugu sharaxaan waxay ku leeyihiin magacooda sheegayaan. tusaale ahaan aniga Cabdi baa janaalkayga la yiraahdaa. marka waxay ku leeyihiin koodka Cabdi haddaa isticmaashid waxaa helaysaa 80% 20% baa lagaa jaraya. 20% marka ayaga waxay leeyihiin 20 bay leeyihiin 20% yani waxay ku leeyihiin 2 ku leeyihiin. marka mar walba qofkii kasta oo sign gareeya bahalka waxaas labuu leeyahay lacagtu laga qaaday 2% buu ku leeyahay. waxyaalo saas oo kale ayay ku sameeyaan xayeysiina ah. marka waa dad waxa waaye alaaba ina aragteen in kale ma aqaane qofka youtuberka markiiba noloshiisu way isbedeshaa asagoo caadi ah soo galaya youtube-ka noloshiisu isbedelaysaa. waxaad arkaysaa asagoo dhahaya waxaan gadanayaa guri, waxaad arkaysaa soo gaari gatay, waxaad arkaysaa they are very 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 rich youtube-ka kaliya ma ahan waxay sameynayaan waxay Instagram bay furanayaan. hadda gabar la yiraahdo Trace Lindgren la yiraahdo oo wadanka Sweden caanka ah. qofka waxa way top qofka ugu koreeya way number 1 youtuber in Sweden weeyaan. marka waxay la safar garaynaysaa ama ku dhacay cudurka macnaha ku dhacay mental health sababtoo ah waxa gabadhaasi waxay tiri hal sawir aan soo dhigo Instagram-keeda. alaa qofka youtuberka wuxuu sameystaa Instagram buu sameystaa. Instagram-kaas ayadana dad badan baa la socda. intii followerskeeda youtube-ka ahaa alaa waxay dhahaan kaale Instagram-kayga imo. Instagram-keeda waxaa la socda millions qof baa daawada. waxay tiri hal sawir aan soo dhigo shirkad ah ama shaambo ama cream jirka ah ama magaranaysaa dirac ama waxay doontaa ahaato hal sawir ay soo dhigto ayay waxay qaadanaysaa 100,000 oo crown. waa lacag u dhiganta adiga $12,000 ya $16,000 waa one picture. marka lacag badan bay sameeyaan. marka ayagoo lacag badan sameeya ayay social media ka tagaan. marka dadka qaar waxay sameeyaan waa xiraanba way iska xiraan commentiyada heerkaas ay marayaan. marka bariyahan dambe anoo la yaaban Soomaalidii maxaa ay yani waa maxay sirtooda
sirta qofka Soomaaliga uu YouTuber u yahay asagoo ma garanaysaa mental issue aan haysan ayaan la yaabanaa. Marka waxaan arkay in qofkii Soomaaliga ahaa uu soo galaya hadda gabarba maalin dhoweed soo dhigayeen waxay soo dhigayeen waxa lagu yiri waxay tiri i arki maysaan weligiin ima arki doontaan inaan hortiina isku raxo weligiinna ma arki doontaan in aan isqaawiyo ma arki doontaan. gabadhii show comment badan baa loo soo qoray yani tin waxa isku dadaysaa tintaada fool xun wax saasa miyaa lagu yiri. gabadhii oo waxaan arkay hayoognay oo tinteeda inta qaawisay dhahaysa fiiriya tinteeda waa taasa ma garanaysaa. waa nooc marka dambe waa nooc waxa weeyaan mental issue way. gabadhii waa la buligareeyay waxa la gaarsiiyay heer isku kalsoonideedii inta lala diriro ay geyso inay tintii ay tinteeda qaawiso waxaad arkaysaa qof intuu soo fadhiista dhahaya waxaas iyo waxaas oo caayisa dadkii sababtoo ah waa la buligareeyay komitiyadii iyo wixii ay u dulqaadi waayeen. waa maxay xalku marka? xalku waxa weeyaan in horta aad marka social media soo galaysid aad og tahay inuu riskigaas jiro inuu dadku caaya ay jiraan. tusaale ahaan aniga hadda sawir baan soo dhigay youtube-kayga sawir baan soo dhigay waxaan kusoo qoray assalaamu calaykum asxaabtayda. qof baa wuxuu iisoo qoray cay qofkaas ma aqaan weligay ma arag waxba uma dhimin hadda sawirka halkaan soo dhigayaa hadday ii suurta gasho waad arki kartaan. ma aqaan uma jawaabin isma dareensiin sababtoo waxaan ogahay qofkaasi inaan waxba u dhimin aniguna waa is aqaanaa qofkaan ahay. marka xalku waxaa waaye horta inaad adigu aad istaqaano qofkaa tahay focuskuna uusan kaa dhumin diintaadana aad ku xirnaato wax akhlaaq xumo ah na aadan soo dhigin oo aadan garanaysaa. adigu akhlaaq xumada haddaad gasho adigana dad akhlaaq xun ayaa kugu soo xirmaya. wax wanaaga laakiin haddaa ka sheekaysid alaab dadka fiican baa kugu xirmaya. laakiin mar walba waxaad ogaataa inuu ma garanaysaa qof xun uu kuu imaanayo. in cudur maskaxiyan ah kaamarada waa lagu waashaa bay dhahan Soomaali waa run. kaamarada waa lagu waashaa macnaheedu waxa waaye mental issue waa kugu dhici kara waay. marka aan u isticmaalno youtube-ka qaab wanaagsan iyo social media-ha tan iyo intaanu dib dambe u kulmi